لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان. هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وناكسن داوضيا لقيتكينبا وبرنامج قاره oo aynu ku eegi doono magacyada iyo macnaha af Soomaaliga ee suuradaha Quraanka Kariimka sida ay soo kala hordegeen iyo tirada aayadahooda. Waxa caado ah in ummadda Soomaaliyeed qarniyadii u dambeeyay ay Quraanka ka baran jireen dugsiyada carruurtana ay geeyaan halkaas oo higaada Quraanka lagu baro suuradahana lagu xafidsiyo. Ayay macnaha Quraanka iyo tafsiirkiisu kuma baahin si rasmi ah oo ballaaran oo Soomaalidu xitaa suuradaha Quraanka magacyadooda badi ma yaqaaniin xarafka ugu horeeya ee suurada ay ka bilaabanto ay ku magacaabaan. Waxa kaloo la yaab leh in waxyaabaha dunyawiga ah ee adduunyada ku saabsan dadku ay dusha uga hayaan xafidsan yihiin sida mahmaha, heesaha, gabayada. xitaa ciyaartoyda ka ciyaarta dunida qaaradaheeda kala duwan ayay yaqaaniin mid kastaba qoyskiisa iyo xaaladda caa'iladeed carruurtiisa dhaqaalaha soo gala iyo daatooyin iyo xogo kale. dhirta magacyadooda alaabooyinka dukaamada yaala iyo guud ahaan wax kasta aad bay Soomaalidu dusha uga haysaa. Ayay 114 suuradaha Quraanka Kariimka magacyadooda iyo macnahooda iska badaa tansiisha iyo sida ay soo kala hordegeen way adag tahay ee Soomaalidu ay isku hawsho. marka noo ka faa'iideysan fogaanada gabariyayteen waxaanu gaarsiinaynaa ummadda af Soomaaliga ku hadasha balada suuradaha Quraanka sida ay soo kala hordegeen iyo macnahooda iyo aayadahoodaba. suuradda ugu horreysay soo degta al-Alaq ayaa leedahay macnaheeduna waa xinjirta waa 19 aayadood. waxay istira leeyihiin xagga aayadaha al-A'la iyo al-Infitaar. suuradda labaad ee soo degta al-Qalam waa qalinka waa 52 aayadood. waxaa la aayada ah al-Haqa iyo Ibrahim. suuradda saddexaad ee soo degtay waxay al-Mudaththir waxa weeye macnaheeduna istuutubaha oo rasuulka loola jeeday. waxay ka kooban tahay 56 aayadood. suuradda afraad ee soo degtay al-Muzammil waa isdeedaha oo iyadana rasuulka loola jeeday waa 20 aayadood. waxayna istira leeyihiin suuratul Balad xagga aayadaha. suuradda shanaad ee soo degtay waa al-Faatixa waa banaysada ama furtada. waxay ka kooban tahay 7 aayadood. suuratul Maacuun ayay isleeyihiin tirada xagga aayadaha. suuradda lixaadna waa al-Masad oo xadhiga baana 5 aayadood. 3 suuradood oo kale oo fiil iyo qadar ka mid yihiin ayay isleeyihiin xagga aayadaha. suuradda toddobaad at-Takwiir macnaheeduna waa kala wareega waa 29 aayadood. waxay isleeyihiin al-Fatax iyo al-Hadiid. suuradda sideedaad ee soo degta al-A'la waa u sareeyaha oo Ilaahay loola jeedo magaca Ilaahay waa 19 aayadood oo waynu sheegnayo al-Alaq iyo al-Infitaar bay isleeyihiin. suuradda sagaalaad waa al-Layl habeenka waxay ka kooban tahay 21 aayadood. suuradda tobnaad ee soo degtay waa al-Fajr waa beriga waxay ka kooban tahay 30 aayadood oo ay isleeyihiin as-Sajda iyo al-Mulk xagga aayadaha. suuradda 11 ee soo degta ad-Duha macnaheeduna waa barqada waana 12 aayadood waana suuraddii 11aad. 4 suuradood oo kale al-Munaafiquun iyo al-Jumuca ay ka mid yihiin ayaa min 12 aayadood oo ay isleeyihiin. bal fiirso daawada waxaa la sheegay al-Layl habeenkii saa waxaa lagu xejiyey al-Fajr waagii oo bariyay saa waxaa ku sii ad-Duha barqadii. xigmadahaas meel kale waynu ku arki doonaa. suuradda 12 ee soo degta waxay ahayd sharax macnaheeduna yahay fidinta waa 8 aayadood oo 4 suuradood oo kale ay isleeyihiin oo al-Bayina iyo az-Zilzila ay ka mid yihiin. suuradda 13 al-Casr waxa weeye xilliga waa 3 aayadood. Kawthar iyo an-Nasr ay isleeyihiin.
suuradda 14 waa alcaadiyaat waa nooc fardaha ka mid ah oo 12 aayadood suuradda 15 waa alkawthar waa deeq rasuulka loogu ballan qaaday oo gaar u ah waa 3 aayadood suuradda 16 at-takaathur waa badsiga waa 8 aayadood suuradda 17 al-maacuun waa weelka waa 7 aayadood al-faatixa isleegi suuradda 18 waa الكافرون دفرياشا أما قال هذا ولحى يضوضو وحيسلاقيهن سورة الفلق سورة الناس وصومالي دو قلوا دبر الناس وتقان سورة ده سقالي تبنا ده وحي يدي سورة القرآن كان الكريم كالفيل أما مروديكا وحيكاكو بنتها عشان عيدوت سورة ده لباطنات والفلق وصوب حدة أنا قلت عليها صوب حيسا أما جيت لوكا كصوم مريا صوب حدة وعشان عيدوت سورة كوبي لباتنادنا والناس ودتك ولح عيدوضو الكافرون بيسلاقين سورة اللي لباتناد سورة القرآن كواحد الإخلاص وقاري لدا وافر عيدوضو سورة قريش أي يسلاقين حق عيدها سورة صدح هي لباتناد سورة واحد النجم أما حدك والنبي لحدنا عيدوت تافر لباتنادنا عبسة وجدو بستا وجهه دوبي waxay ka kooban tahay 42 aayadood suuradda 15 waa alqadar waa awooda waa 5 aayadood suuradda 16 waa shams waa qoraxda waxay ka kooban tahay 15 aayadood suuradda 17 alburuj waa marinada cirka airlines waa 22 aayadood waxayna isleeyihiin suuradda kale dooda ama almujaadila suuradda 18 waa atiin geedka tiinka waana 8 aayadood suuradda 19 waa quraysh waa 4 aayadood waa qabiil carbeed oo rasuulku ka dhashay alayhi salaatu wasalaam al-ikhlaas bisleegin haga aayadaha suuradda 30 al-qaari'ah waa magaca qiyaamuhu leeyahay oo 12 aayadood suuradda 13 waa al-qiyaama waa qiyaamaha laftiisii waa 40 aayadood oo waa isleeyihiin suuratu naba haga aayadaha Soomaalida amma yaqaan suuradda 12 waa al-humazah waa ayda waa 9 aayadood suuradda 13 waa al-mursalaat kuwii la soo diray waa 50 aayadood suuradda 14 waa qaaf alif lam mim hamim xarfaha maqduucaadka oo dhami lama oga macnahooda ilaah baa og waxa uu la jeedo taawishooda iyo fasirkoodaba marka qaaf ilaahay baa og wuxuu jeedo waa 45 aayadood waxay isleeyihiin haga aayadaha tiradoodana suuratu faatir suuradda 15 ee soo degtay quraankeena kariimka albalad ayaa la yiraahdaa waa magaalada aayadaheeduna waa 20 oo muzammil bay isleeyihiin hore soo sheegnay suuradda 16 waa taariq waa xidig u dheer waa 17 aayadood 17 waa alqamar waa dayaxa waa 55 aayadood suuradda 18 ee soo degtay waxay ahayd suuradda صاد إله بأقوها ولا تشيده وسديد يسديتنا عيضات سورة سقالي سدنا نوع على عراف ومعناه دي هاي قضاء بورتقر كذا السرية وهاي كوبنت هاي لما بقول إيه اللي حيضات سورة دافرتنا نوع الجن وتشينكا أيده الدنوا سديد يلا بعتن وسورة النوح أي سلاجين حاجة ترى عيضها سورة كوبيا فرتنا سورة تواعي ياسين ياسين كربي بقى وجدديسا وهو كوضوه آيده هدونا وصده يسديتن ربي فرتن سورة داهي وهو فاطر نوامق إلهي ليهي هو بلابه لحق صبيلها هو بلابه وعشان يفرتن آيده وقاف بيسليقين حق الترضى آيدها سورة صده هي فرتن أحل إذا الفرقان كلا سارتضع وتضباتن آيدوت سورة أفريقيا فرتنا مريم وأول قرة هاي قرآن كوكحصي نبي عيسويدي أيده هذا سورة مريم وسجاشن ستيت سورة شنيا فرتنا طه ضاي هذا ربي بقى وحوجت جده وبقول يشني صدنا عيدوت سورة الله هي فرتنا ضايد الواقعة ودعدها متكم بدم مقايدة قيامها ولا هي سجاشن عيدوت سورة تطبيع فرتنا الشعراء وقبيا يدا waxay ka kooban tahay 227 aayadood
تنسيدي أفرتنادنا والنمل قرآن شدا وصدح يسقاشن آيات تسقالي أفرتنادنا والقصص شيكويكا وسيدتنا آيات صاد بيسلقيهن حق ترى آياتها سورة كنت نادي سودتا وعيد الإسراء وديل منتا آياته دنوا بقولي كوبي طبعا سورة يوسف بيسلقيهن سورة كوبي كنت نادي وعيد سورة يونس وبقولي سقال آيات نبي يونس بالله مقدره طلبي كنت نادي وهود نبي هود بالله مقدره بقولي صدح إلى وطن آيات بيه سورة صدح كنت نادي سودتا القرآن كان كريم كوا سورة يوسف والنبي يوسف لو مقدره بقولي كوبي طبعا آيات بك كومنتها أو حسلقي حق ترى آياتها الإسراء سورة أفريقيا كنت نادي والحجر وميل مقعد سقاشني سقال آيات بيه مدة شنية كنت نادي والأنعام نموليد حولها وهيك كومنتها بقولي لحدا هي شن آيات سورة اللي كنت نادي وأصرافات صفافك بقول يسديتني لبا آيات سورة كنت نادي تضبع واللقمان ونينكي مرتدى بدنا إلى قرآن كحصي صدن يافر آيات بك كومنتها سورة كنت نادي سديد والصبع ومال يمن كتال آياته دنا وكنت يافر في سورة فصيلت بيسلقين حق آياتها سقالي كنت روح هيد الزمر والرابع أما كوح آياته دنا وشان يتضباطنا وحيسلقين على الأنفال سورة ده لحدا وغافر وإلهي مقعيسة والدن بدافع شان يسديتنا آيات بك كومنتها تكوبي لحدنا دوا فصيلت كلا دكتادا أما كلا سار تدا أفريقيا كنت آيات بيو صبا يسلقين سورة ده لحدن يلبا الشورى وتلوذاك صدح يكونتنا آيات بك كومنتها سورة ده صدح يلحدن الزخرف والدلدلالك سيديتني سقال آيات بيه سورة ده لحدن يأفر الدخان وقيقة كنتني سقال آيات بك كومنتها شان يلحدن وحا الجافية وتلبة جوكسية بحكا كومنتها صدن يتضبع آيات سورة ده اللي هي لحدن نوع الأحقاف وميل مقعد ولحي وشن يصدن آيات سورة سودك القرآن كان لحدا يتضبع وحيد الذاريات والضبيلها نوع كم من الجنود الحي آياته دوا لحدا وحين يسلقي سورة الروم سورة لحدا يسديد الغاشية وهي دبوشة آياته دوا ولحيا لبعتن ومقع قيامها متكملة سورة لحدا يسقال الكهف وهي وبهوشة أما قوفكا بقول يطبن آيات سورة تضبطنات النحل البلد هايو واشينيدا هيك كومنتاي بقول يستدي لبعتن آيات سورة تضبطني الكو سورة القرآن الكريم كاي ونوح وسيدي لبعتن آيات الجن بيسلقين سورة اللي تضبطنات النبي إبراهيم بلغو بقدر إبراهيم بلدها وكنتم يلبا آيات سينو شاقنا الحاقة يا القلم بيسلقين حق ترى تصدح تضبطنات والأنبياء النبيدا وحكا كومنتاي بقول يلبي طبعا آيات تافريت تضبطناتنا والمؤمنون مؤمنين تا كو رمي oo ka kooban 118 aayadood waxa ku xigta oo suuradii 5 soo degtaa as-sajda sujuuda 30 aayadood bay ka kooban tahay al-mulk baysleegihiin iyo al-fajr suurada 76 balu fiir sorta daawada waxa la sheegay suurada 17 nabi nuux waa nabi ilaahay 17 waxay noqotay nabi ibraahim oo nabi kale al-anbiya oo nabiyada oo dhan magacyadooda sidata magacyada risaalada iyo fariinta nabiyadu markay sidaana waa la rumeeyaa cidii rumaysay muuminiin baa lagu xajiyay muuminiintuna cibaado ay sameeyaan as-sajda oo cibaadadii ugu weyn ee salaada sujuudii bal sida ay suuradaha xitaa tansiishooda haddaad u sii fiirsato nuxurka ku jira daawo suurada 76 ay soo degtay waa tuur waa buurta aayadaheeduna waa 49 suurada 77 al-mulk waa lahaanta Soomaalidu tabaarك بيتراado xarafka horeeya ay ka xustaa suurad ka saseen oo soo sheegnay al-mulk waa lahaanta waxay ka kooban tahay 30 aayadood 78 suurada ah al-haqa oo magac kamid ah magacyada qiyaamaha tii xaqaysay oo 52 aayadood suurada 79 soo degtay quraanka al-ma'aarij baa la dhahayo macnaheedu waa cirkorista ama samafuulista
waxay ka kooban tahay 44 aayadood ta 8aadna waa annaba waa warka warkii qiyaamaha Soomaalidu camay tiraahdaa waxay ka kooban tahay 40 aayadood alqiyaamaha ay isleeyihiin annaba suuradda 81 النازعات والنفسي بياشا وانا لحيا فرتنا ايضوت لبي سديت نوحا الانفطار بربرينتا هاي كوبنتا صدق سديت نوحا الانشقاق جهجهدا مدلدلا عدا حق سمدوي وهاي كوبنتا شن يلا باتنا ايضوت سورة فرتني سديت الروم والرومانيين تاع طليانيكا ولحدنا ايضوت داريات بيسليجين سورة شنيستي ترى العنكبوت عارضة وحكي كوبنتاي لحدني سقال عيدوت سورة سيدتني اللي سودك القرآن كان الكريم كواحد المطففين وميزان خلطياشا بلس اور ماينس 1 مركا بيغانا يانا ايغا wax ku darsanaya markay dadka u miisaan waxba ka dhimayaan marka waa miisaan khaldayaasha oo ay ka kooban tahay 36 aayadood 87 suuradii soo degtay waxay al-baqara waa saca suuradda ugu aayadaha badan quraanka kariimka waxay ka kooban tahay 286 aayadood suuradda 88 ee soo degtay quraanka waxay al-anfal qaniimada dagaalka 75 aayadood bay ka kooban tahay waxay isleeyihiin الزمر سورة 89 وآل عمران وغير عمران لما بقولوا عيدود بيه وقوة سورة 19 والأحزاب كوحاها وهيك كوبتا صدح يتضواتنا عيدود سورة كوبي 19 الممتحنة وامتحان تضع وهيك كوبتا صدح يتضواتنا عيدود لبي 19 النساء هوانكا وبقولي يتضواتني لها عيدود صدح 19 وحا الزلزلة ودول قريرك أي شيء ودول قريرك مقاعدة قيامها متكمدوي وأنا سيديت عيضوت أفري سجاشن وحى الحديد وبرتا سجالي لا تنا عيضوت بك كومنتا سورة شن سجاشن هذه سودك تي وحى لوجو مقاطع الرسول كيني عليه الصلاة والسلام محمد بله سورة محمد وسيديت يصدنا عيضوت سورة سجاشن يلح وحوي الرعد وأنكتك وحكي كومنتا هي صدق يا فرتنا عيضوت وأنا سورة داود بيساي كوتشرتو حرفها مقطوعاتك ايكو انا اله مويعتك لان قولنا الف لام ميم يحامين وكلا الف لام ميم را اي كبل امتا الرعد وسقاشني اللح وانا انكتك مقطوعاتكنا ايدا ugu dambaysa sagaashan iyo 7 سورة الرحمن الى نهاريست guud laba loogu magacdaray 78 ayadood weeye waa inay isleegiin سورة الحج سورة 98 suurada soo degtay ee 98 waa al-insaan waa dadka ilowshiya badanaha كوبي صدر عيضوت بك كومنتا سورة سجالي سجاشنا والطلاق فرينكا وهيك كومنتا هاي لبيه طبعا عيضوت سورة بقولات البينة وبيام سدا سي عديني سيديد عيضوت بك كومنتا هاي أفر سورة كليس ليجين سورة بقول يكو الحشر وكل منتا إزوكينيدا وهيك كومنتا هاي أفر يلا بطن عيضوت بقول يو لبا وسورة النور iftiinka ama ilayska ay ka kooban tahay 4 aayadood boqol iyo 3 suuradii ahayd soo degtay waxa weeye al-hajj oo hajka waxay leegtahay ar-rahmaan wa 78 aayadood boqol iyo 4 waxa ah al-munaafiquun laba wajiilayaasha afka muslim urka gaal laba wajiile koob iyo 10 aayadood bay ka kooban tahay afar kala suuradaha bay isleegiin xagga tirada سورة بقول يا شنو المجادلة ومرنكا سومالي قد سمع بيتراها المجادلة ومرنكا أما الضوضة وهيك كومنت هاي لبيه لباتنا عيدوت وهي نسليجين البروج سورة ضوية لاتنا هايت سورة بقول يتضبع بقول لح عن الأهضة والحجرات قلالك أما مقسم نضع سيدي يتوبنا عيدوت أيك كومنت هاي بقول يتضبنا والتحريم حرامينتا لبيه طبعا عيدود أي كوبن تحت بقول سيدي وحا التغابن دك تدا سيدي طبعا عيدود أي كوبن تحت سورة بقول سجالات سودك القرآن كان الكريم كواحد هذا الصف والصفقة وافري طبعا عيدود سورة بقول طبعا ده الجمعة وجمعها أي كوبن تحت كوبي طبعا عيدود سورة بقول كوبي طبعا الفتح وفراشة سجالي لا تنعيدود bay ka kooban tahay oo takwiir iyo xadiid bay isleeyihiin xagga ayadaha
تبقول اللي بيتبنى والمائدة وحيرضا وحنا كوبتهاي بقول إلى وطن أيضوت سورة ده بقول إيه صدق هي طبعا وهل إذا التوبة سومالدو براءة يتهذا بلوغ بكاجان التوبة وصل نقشة وهي كوبتهاي بقول إيه سجال إلى وطن أيضوت سورة داود بس القرآن كا سورة أهانو سودكتي وهل إذا النصر سومالدو ده جابوا يتقان النصر صدق أيضوت بكاكوبتهاي وأنا سورة دي سورة أهان قرآن كجدا بس سودكته إنك استوى عادي جدا بكتيران سورة المائدة بلوغ كذا اليوم لكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي آيات إلهي كشيء وآيات هان يدو هي شيء صورة هانتي جدا بس يسودكتها والنصر وهيلكا وحنا كوبنتهاي صدق آيات العصر هي الكوثر بس ليجين وأنا رجعنا داود يا شاف سومالي كوه الله يا مسلمين تكلايوسي جود بين كرامبا إن يبل مركو رئيس كوه هولان برشاد القرآن كريم كه وحرف كي سبر رسول كشيء هالك حرف قف كآخرها انتو من درجة اللغة مركان حديث صحيح وحكي النبي عليه الصلاة والسلام ألف كوا حرف ألف لام ميم هدانا ضبيري ألف كوا حرف بالله ترنيا لام كوا حرف ميم كوا حرف مركان بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن حرف كوا المركان الأخير وهذا ليس لما بقول يتو من درجة قرآن كنا وحشر دي لقوه الرئيسية تعود كما كان بقولك ربي وإلهي باب القرآن كي لقوا فريا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم آيات إن له كان سماياها بون وأنت بدنا ولا سكيل لا مركز القرآن كأقريسه إلهي كم بقى الشيطان كله فوقيه أنت لفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شن إلا وتن حرف بيجك وبنتايو مركز إلهي كم بقى شبق لا بقول يكنتم ترجو وإلهي كريه يوجي هاي ترجو يكاسين تلاقيهم بدل ساعة هلا جود ده لو برشة يفهم كقرآن كا سيداس يلو قاري كرا إلهي وقوة رمية مركود دقيقة مرة كوب بشارينية مرة وحكوه حلالية مرة كحرامينية وحكاه الرئي iyo wax ka dambeeya iyo xukunka dhexdeena saddexduba quraanka ku jiraano rasuulka ay waxa lagu soo koobay naba ma qablakum war wixii idin ka horeeyay wa hukmu ma baynakum talaw wixii dhexdeena wa khabaru ma ba'dakum iyo xog wixii idin dambaysa waxaana dadka ugu sharaf badan bi nabiga kaleey salaatu salaam ka quraanka baranaya iyo ka baraya marka yaa la saashanin oo dunidan dhalanteedka ayaamaha lagu ilaawin ayatinka dhabta ah muftaha iftiinkii ilaahay soo diray ee kugu hagayay liibaanta labada darood ayaanu kula ballamaynaa kuna booranaynaa haweenka Soomaaliyeed iyo intii af Soomaaliga taqaanay musina meel kasta ay joogaanba barnaamijkeeni gaarka ah daawadayaal aynu ku macnaynay magacyada suuradaha Quraanka Kariimka kuna sheegaynay sida ay soo kala hordageen iyo tirada aayadahooda suurad kasta anigu Usmaan Cabdullah Haashiyaan kala socodsiinay fogaanada gabriyayteen inta ayaanu ku soo gabagabaynay intaynu mar kale kulmi doono idinka Ilaahay waxaanu gudigeeyay ku dhaafaynaa assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان